xisbi waliba dee xaq buu u leeyahay marka uu shirkiisa golaha dhexe qabsanayo iyo halkuu ku qabsanayaba inkastoo ay fiican tahay xisbiyada inaanay shaqaalaha dawladdu iyo madaxda masalanba xagga sharciga qaabilsan iyo ciidamada qaranku aanay ku dhex milmin taa anigu waxaan baan u arkaa uun dee xisbi qabsaday shirkiisii laakiin waxaan jecelahay inaan ka hadlo muxuu ahaa wasiirkii hore maaliyadda Soomaaliya oo hadal meesha ka jeediyay beerlaxawsi xagga madaxweynaha ah oo isaga u gaara dhinacna ka duray xisbiga wadani kuna tilmaamay cadow taana anigu aan aaminsanahay xisbi kasta ama qof kasta oo maxkamad gala xaakinkiisa uu duri karaa oo xaq buu u leeyahay khalad iyo sax waxay ahaataba taasi ceeb ma laha haddaad shakhsi tahood maxkamadda ka ashtakoonayso iyo haddaad xisbi tahay ood komishin ka ashtakoonayso sharcigaa banneeyey inaad durto ama qaldano ama saxaha oo ta kale dee maanta layskuma haysto madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi waa madaxweynihii qaranka weeyaan markaa layskuma haysto taas hase yeeshee Soomaaliya waxa uu ku macneeyay taageerayaashii xisbiga wadani ama ummadii reer Soomaaliland ee cadawgiisu yihiin waa nasiib darro nin weyn oo madaxa dhinaca kale marka ka eegto dee Soomaaliya waa wasiirkii maaliyadda xukuumaddii Siiraayo waa ninkii diiday wasaaradda waxbarashada oo wasaaradda ugu weyn dalka ama wasaaradaha ugu waaweyn ka mid ah sababta uu ku diidayna isaga garanaya Soomaaliya waa ninkii khasnadda dawladda uu mas'uulka ka ahaa madaxweynaha maanta jooga kula dagaalamayay si uu isticmaalayay sidii dukaan uu leeyahay oo kale quraanka iyo diintuna waxay ku wanaagsan tahay bini'aadamka dadka diinta bartay ama dadka islaamka ah qaarna gacanta ay ku sitaan kitaabka qaarna laabtuu degay oo laabtay ku haystaan marka waxa wanaagsan qofku markuu quraanka akhriyayna inuu ku camal fale inuu u soo daliishado dana gaar uu leeyahay maaha taasna waxa weeyaan ninka odayga oo aan ku haboonayn inuu ummadda reer Somaliland cadow maaha wadada walaalo ah laakiin waa la tartamaa tartankuna ceeb maaha cidii heshana waa loo hambaleeyay maanta Muuse Biixi madaxweynaha kursigiisa cid isku ma haysato taasi waa taa waxaan hambaleynayaa oo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada qaran maxay ahayd maalintii uu madaxweynuhu furay run ahaantii waxa weeyaan waa mashruuc aad iyo aad u wanaagsan waxa laga yaabaa dhalinyaro fara badan oo reer Somaliland inaanay fikrad badan ka haysan oo qaarkood si khaldan ay maaragtay ay u haystaan laakiin waxaan leeyahay mashruucan shaqada qaran caalamka intiisa badan way ka jiraan Mareykan buu ka jiraayo aynu ognahay in rag loogu diido tartanka madaxtinimada dalka maadaama uu ka qayb gali waayay shaqada qaranka ee dalka ayaa murashaxnimada iyo xilalka loogu diidaa waxay dhistaa bulshada dhistaa dhalinyarada dhistaa isdhexgalkay abuurtaa qabyaaladda lagaga tagaa anigu waliba waxaan aaminsanahay 3 bilood baa maqlay laakiin in ay madaxweynuhu ka dhigo 9 bilood ama sanad si dhalinyaradaasi anshaxa iyo difaaca qaranka ee xagga ciidamada iyo xagga bulshada difaac madani intaba ay u bartaan oo qabyaaladdu ay kaga meedhanto marka ma aha dad baa waxa laga yaabaa in loogu sheekeeyay siyaad barra dadka geyn jiray xalana iyo ceel jaaliye waxaynkaas waa fikrad Yurub iyo dawladaha reer galbeedka iyo dawladaha horumaray ay leeyihiin oo arday kasta uu soo maro shaqada qaranka taas waxa weeyaan waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo anigu aan hambaleynayo oo aan jecelahay yani waa laga yaabaa in mashruucu aanu ku bilaabmin wax wada sax ah laakiin sanadba sanad ka dambeeya uu saxmo oo marka dambe laga sameeyo diiwaan ay wax waliba ku yaalaan oo cid kasta oo fikrad haysa ama fikrad ku biirinaysa ay ku kordhiso oo haddii maanta ay wax ka yara khaldan yihiin sanadka dambe la saxo ka kala la saxo si ay waxaas u yimaadaan dabeedna wax wada sax marka loo baahdana wixii laga bedeli karo laga bedelo wallahi waa waxyaabahan kuleeyahay dadka bini'aadamka qaarna kitaabka gacanta ku haystaa qaarna laabta ku haystaa oo quraanka iyo diinta qofka ku dhaqmaya waa qofka laabta ku haystay kaga dhabeeyay qowlka uu ku hadlayo laakiin qowlka aan ku hadlayo
haddaan dana gaara ku qaadanayo waxa weeyaan waxaan doonaa baan ku hadlayaa wasaad sheegto aniga lahaa waxa weeyaan hantidii ummadda ayuu kumanaan qof ku casuumi jiray hodheelada isagoo madaxweynaha kula dagaalamaya inaanu kursiga fadhiisan waa ninkii bixiyey kolkuu madaxweynuhu haakaha yidhaahdo adduunka ilaahay haakaha yacni waxa madaxweynaha waxbuu u dhimay cid kasta oo xil doonaysana waxbuu u dhimay haakahadu waa maxay waxa weeyaan xilka waa laga cararaabee marka dee taasi ummadoo dhan baa og ummadduna way kala taqaanaa mas-uuliyiintooda nin kastaaba markuu xilka soo qabto taariikh buu kaga tagaa marka waxa wanaagsan dad badan oo wanaagsan oo xilal soo qabtay way jiraan dad badan oo taariikh madow ku lehna way jiraan marka dadka noocaas oo kale ah waxa wanaagsan inaanay ummadda bay soo hortaagin ee ay danahooda gaarkaasi qabsadaan